شريف شيخ ودور شخصي أو هل شريف اسكو Soomaaliya iyo Kenya waxa dhex yaala xaalad cakiran oo ku saabsan soodinta badda ee labada dal haddaba xaalad noocan ah inay timaado mas'uuliyadeeda yaa lahaa Abriil 2009 Shariif dawladdiisii ayaa heshiis afgarad ah kala gashay badda Soomaaliya dawladda Kenya Agoosto 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay heshiiskaas is-afgaradka ah ee Soomaaliya iyo Kenya dhex maray guddi waxay yiraahdeen saqaanin baan waxay yiraahdeen guddi ha loo saaro afar helbaan waxay yiraahdeen dib ha loo dhigo 334 helbaan waa diideen heshiiska Shariif Sheekh Axmed waxa uu qabay xilliga aragti ka duwan baarlamaanka waxa uuna difaacay heshiiska dawladdiisa ay gashay marka ugu horeysa dawlad waxa laga marmaan inay heshiis gasho ay imaanaysa waxa dawladdu ay ka hadlaysaa ama xukuumaddu ay ka hadlaysaa oo wax la wada gartay oo la fahmi karo ahaayeen laakiin haddana waxa dhacda nasiib darro dad badan in ay sameeyeen propaganda ka soo horjeeda heshiiskaas baarlamaanka sida aad la socotid waxa uu xaq u leeyahay waxay tahay heshiis inuu buriyo laakiin kan heshiis ma ahaan waxa ay afgarad hase yeeshee September 2016 7 sano kadib heshiiska inta ay socotay ololihii doorashada ayuu Shariif diiday inuu wax ka ogaa heshiiskaas waxa uuna iska fogeeyay mas'uuliyadiisa ra'iisul wasaaraha idin jawaabay wasiirka idin jawaabay aniga dhabo arkinba warqad lagu saxiixana ma arkin meel lagu saxiixana ma ogi waxna kama ogi haday fiican tahay dadkaas iskale haday xumaatan ayaga iskale Shariif mar kale ayuu laba mowqif ka istaagay xadgudubyo Kenya ay kula kacday Soomaaliya 16 Oktoobar 2011 ciidamada Kenya ayaa soo galay gudaha Soomaaliya ciidamada inay iska soo galaan Soomaaliya dawladuna ma ogola shacabka Soomaaliyeedna ma ogola sida aad ula socoteen ciidamada hadda jooga AMISOM waxay ku joogaan ogolaasho dawladda Soomaaliyeed ee shacabka iyo mandate ay siisay UNOC iyo African Union marka iskaashi anaga dhaxay dawladda Kenya laakiin waxaan kala hadalnay marka habka anaga u rabno inay noo kaalmeeyaan inuu yahay hab cad oo ah ciidamada xoogga iyo ciidamada qalabka sida inay diyaar u yihiin shaqada inay qabsadaan iyadoo aanan cid ku wargelin arinta wax fasax ahna aan weydiisan Shariif aragtidiisa didmada ciidanka Kenya waa uu bedelay July 2012 waxa uu aqbalay in ciidanka Kenya ay ka mid noqdaan hawlgalka AMISOM si taageero dhaqaale uga helaan beesha caalamka waxaana halka ka sii wadeen xasuuqa iyo duqeymo joogto ah ay ku hayeen dadka reemiga ah ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gado haddaba si aan u fahno isbedelka Shariifka aan dib u meelcsano qayb ka mid ah 13 sano oo siyaasadda ku jiray Soomaaliya hadday diyaar u tahay inaan muqaawamayno annaga diyaar ah haddaysan diyaar u ahayn annaga waxaan goosan cadowga ila diro Allahu akbar Allahu akbar badan ayaa ku eedeeya Shariif inuu sababteeda lahaa waxyeelada kumanaan kun oo dhalinyaro ah kuwaasi uu galiyay dagaalkii maxaakiimta Islaamiga ah ay la galeen dawladdii ku meel gaarka ahayd 22 January 2007 Shariif wuxuu dharaar cad Kentras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose uga tagay ballankiina uga baxay saaxiibadii ay isla soo halgameen ee maxaakiimta Islaamiga waxa uu tagay Asmara waxa uu sameystay isbahaysi siyaasadeed kadib waxa uu soo wareegay Djibouti balse wuxuu Asmara uga tagay qaar ka mid ah dadkii ay saaxiibada ahaayeen kuwaasi uu ballanta uga baxay mid ugu horeysa anaga maanta meesha aan joogno Addis Ababa waxaan la hadlaynaa waxay ahaayeen madaxda Itoobiya waxayna ballan qaadeen in wada shaqayn iyo mataqaana in ay caawiyaan processka nabadda in ay ka go'anta